وهاجا داوديال qodobkeena ku xiga waxaan ku soo qaadanaa meeya odayadii ma jeerteen maxay soo aamuseen dhacdadii kacday xarunta baarlamaanka ee maamulka goboleedka Puntland ee magaalada Garowe dhacdadan ayaa kadib waxa dhacday ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 9 bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee halkan aan idinku soo gudbin doonana daawadayaal waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay xafiiska shirkadda DP World ee ku yaala gudaha dekedda Boosaaso iyo xaalad halis oo ka soo cusboonaatay Puntland kadib xilka qaadistii gudoomiye Dhoobo Jubbaland oo markii ugu horeysay ka hadashay ciidamada beled xawe ee u goosay dawladda federaalka ciidan taabacsan farmaajo la wareegay guud ahaan gobolka Gedo xisbiga Mukhtaar Robow oo banaan bax dhigay iyo dalab cajiib ay u direen dawladda federaalka Mareykanka oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yaray amiirka Al-Shabaab iyo muuqaalkii laga baahiyay dagaalkii Balitogle iyo xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya basaasiinta FBI-du raadinaysa iyo bin Salman intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay dagaal ayaa xalay waxa uu ka dhacay xafiiska shirkadda DP World ay ku leedahay dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka ee gobolkaasi dagaalka ayaa u dhaxeeyay laba ciidan oo ka kala tirsan maamulka Puntland lamana oga sababta keentay inay dagaalamaan faahfaahin dheeraad ah ka soo baxaya iyadoo saakin ay ciidamada aad u fara badan oo kuwa Puntland ka tirsan ay isku gadaameen xafiiska shirkadda DP World ee ku dhaxeeya gudaha dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari lama oga sababta ka dambaysa dagaalkaasi waxa keenay balse arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad ay ka taagan tahay guud ahaan Puntland taasoo ka dhalatay xilka qaadistii maalin ka hor lagu sameeyay gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobo Daareed kaas oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool Sanaag iyo Caan halkaas oo banaanbaxyo waaweyn laga dhigay oo lagaga soo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyay Puntland ayaa u muuqatay inay xiisad dagaal gudaha la gashay kadib 20 sano oo ay cagaha u taagneed madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa la soo sheegay inuu ku fashilmay hogaaminta maamulkaasi isagoo dhexdhigay shacabka Puntland dagaal iyo fowdo aan dhamaad lahayn madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu khilaaf adag kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba daawadayaal wixii ku soo kordha dagaalkaasi halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa oo ku haya markana maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari ku sugnaa beled xawe dhawaan u goosay dhanka dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xaqiijiyay inay jirto in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka tagay beled xawe isla markaana aaday looq balse sheegay inaysan wax weyn ahayn Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa yiri horta beled xawe looq iyo doolo waxa jooga hal ciidan oo ah ciidan Soomaaliyeed oo ammaanka ilaaliya oo waajibaadkiisu uu yahay la dagaalanka Al-Shabaab waxa jira ciidan dhalinyaro oo ka tirsan ciidan ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 9 bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee halkan aan idinku soo gudbin doonana daawadayaal waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay xafiiska shirkadda DP World ee ku yaala gudaha dekedda Boosaaso iyo xaalad halis oo ka soo cusboonaatay Puntland kadib xilka qaadistii gudoomiye Dhoobo Jubbaland oo markii ugu horeysay ka hadashay ciidamada beled xawe ee u goosay dawladda federaalka iyo ciidan taabacsan farmaajo la wareegay guud ahaan gobolka Gedo xisbiga Mukhtaar Robow oo banaan bax dhigay iyo dalab cajiib ay u direen dawladda federaalka Mareykanka oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yaray amiirka Al-Shabaab iyo muuqaalkii laga baahiyay dagaalkii Balitogle iyo xiriir noocee ah ayaa ka dhaxeeya basaasiinta FBI-du raadinaysa iyo bin Salman intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan
aynu ku bilownay dagaal ayaa xalay waxa uu ka dhacay xafiiska shirkadda DB World ay ku leedahay dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sida ay ku soo waramayaan dadka deegaanka ee gobolkaasi. dagaalka ayaa u dhaxeeyay laba ciidan oo ka kala tirsan maamulka Puntland lamana oga sababta keentay inay dagaalamaan. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya iyadoo saakin ay ciidamo aad u fara badan oo kuwa Puntland ka tirsan ay isku gadaameen xafiiska shirkadda DB World ee ku dhex yaala gudaha dekedda magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. lama oga sababta ka dambaysa dagaalkaasi waxa keenay, balse arintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo xiisad ay ka taagan tahay guud ahaan Puntland taasoo ka dhalatay xilka qaadistii maalin ka hor lagu sameeyay gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Dhoobadaareed kaas oo ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool, Sanaag iyo Caan, halkaas oo banaanbaxyo waaweyn laga dhigay oo lagaga soo horjeeda xilka qaadista lagu sameeyay. Puntland ayaa u muuqatay inay xiisad dagaal gudaha la gashay kadib 20 sano oo ay cagaha u taagneed. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa la soo sheegay inuu ku fashilmay hogaaminta maamulkaasi isagoona dhexdhigay shacabka Puntland dagaal iyo fowdo aan dhamaad lahayn. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu khilaaf adag kala dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddaba daawadayaal wixii ku soo kordha dagaalkaasi halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa oo isha ku haya. markana maamulka Jubbaland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay ciidamo gaaraya ilaa 200 oo askari ku sugnaa Beled Xaawe dhawaan u goosay dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa xaqiijiyay inay jirto in ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland oo ka tagay Beled Xaawe isla markaana aaday Luuq balse sheegay inaysan wax weyn ahayn. Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay idaacadda BBC-da ayaa yiri horta Beled Xaawe, Luuq iyo Doolo waxaa jooga hal ciidan oo ah ciidan Soomaaliyeed oo ammaanka ilaaliya oo waajibaadkiisu uu yahay la dagaalanka Al-Shabaab. waxaa jira ciidan dhalinyaro oo ka tirsan ciidanka Beled Doolo. waxa uu sheegay gudoomiyaha in qorshaha dowladda isugu ballaarinayso gobolka Gedo uu sii socon doono isla markaana dhawaan la soo gabagabeyn doono. sidoo kale waxa uu sheegay in maamulka Axmed Madoobe uu dhibaatooyin ka wada gobolka isla markaana uu ka dambeeyay dilal iyo afduubyo loo geystay dad shacab ah. dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Gedo ayaa sheegay in lagu raajoogo shakhsiyaad ka tirsan Jubbaland oo baxsada isla markaana maxkamad la soo taagi doono kuwa la hayo iyo kuwa la soo qaban doono. ku dhawaad 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada daraawiisha Jubbaland ayaa isu dhiibay shalay ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya ku sugan degmada Luuq ee gobolka Gedo. saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ku sugan degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada ay la soo xiriireen isla markaana ay ku amreen inay tagaan degmada Luuq halkaasina lagu soo dhaweeyay. dhinaca kalena waxaa magaalada Baydhabo xarunta maamulka Koonfur Galbeed ka dhacay kulan weyn oo lagu duceynayay dadkii lagu xasuuqay magaalada Baydhabo xilligii doorashada maamulkaasi ee la xiray Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. boqolaal qof ayaa isugu soo baxay barxad ku taala magaalada Baydhabo waxaana halkaasi loogu qabtay kulan duco ah iyadoo la qabtay 5 neef oo geel ah. kulanka uu soo qaban qaabiyay xisbiga amni iyo cadaalad ee uu gudoomiye u yahay Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo hadda u xiran dowladda ayaa lagu dalbaday in cadaalad ay helaan qoyskii laga dilay dadkii ka banaan baxay xariga Roobo ee lagu laayay magaalada Baydhabo. dadka isku soo baxay ayaa waxaa boorar ay ku qornaayeen erayo lagu duceynaya dadkii Baydhabo lagu dilay. sidoo kalena waxay ku baaqeen in la soo daayo Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. ciidamada dowladda iyo kuwa Itoobiyaan ayaa 13 December sanadkii 2018 waxay magaalada Baydhabo ku laayeen dad fara badan oo banaanbax dhigayay kuwaas oo ka soo horjeeday xariga Mukhtaar Roobo oo ka mid ahaa musharaxiinta ugu cadcad doorashadii ka dhacday magaalada Baydhabo oo ay afduubatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. goordhow waxaad maqli doontaan saaxiibayaal Mareykanka oo jawaab kulal ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray Abu Cubayda amiirka ururka Al-Shabaab, balse markan waxaad ku soo dhawaataan. Sacuudiga ayaa mar labaad wajahaya eedeymo ah inay basaasiin ku abuurtay barta ay bulshada ku kulantay ee Twitter-ka si ay u hesho xogo iyo macluumaad ku aadan muhaajiriin badan oo dhalasho ahaan dalkeeda ka soo jeeda. basaasiinta lagu eedeynaya Sacuudiga ayaa waxay si toos ah u beegsanayeen dadka sida gaarka uga soo horjeeda dowladda boqortooyada Sacuudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Mohammed bin Salman. eedeymaha ka dhanka Sacuudiga ayaa waxaa si toos ah ugu soo jeediyay waaxda cadaaladda Mareykanka taas oo si cad ugu eedeysay qaar ka mid ah shaqaalaha hore ugu tirsanaa Twitter-ka inay dadka u basaasaan boqortooyada Sacuudiga.
basaasiintaasi ayaa mid ka mid ahay waxaa soo shaacbaxday inuu horey ula kulmay boqorka sacuudiga iyo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan midaas oo sii xoogeysatay tuhunka wada shaqeyneed ee kooxdaasi iyo boqortooyada. dhinaca kalena hay-adda dembi baarista mareykanka ee FBI-da ayaa iyaduna daawacday sawirada tuhmanayaasha sacuudiyaanka ee lagu eedeynaya inay u basaasayeen boqortooyada sacuudiga. shabakada FBI-da ayaa khamiistii waxay soo bandhigtay sawirada iyo faahfaahinta qaar ka mid a raggaasi lagu eedeynayo basaasnimada, waxaana si gaara uga dhex muuqday muwaadiniin u dhashay sacuudiga oo lagu magacaabo axmed al mutayri iyo ali al zubeyra. xafiiska xeer ilaaliyaha mareykanka ayaa isaguna waxa uu sidoo kale sheegay in xogaha basaasiintaasi ay xadeen ay ka mid ahaayeen ciwaano email, lambaro taleefan iyo ciwaano IP kuwaas oo ay lahaayeen dad si aad ay uga soo horjeeda islamarkaana dhaleecaya dowladda sacuudiga. xogta la xaday waxaa ku jiray ciwaano email, lambaro taleefano ah iyo ciwaano IP-ga ah kuwaas oo ay lahaayeen kuwa dhaleecaya dowladda sacuudiga, ayuu yiri xafiiska xeer ilaaliyaha dalka mareykanka. ugu dambeyntiina dowladda mareykanka ayaa ku gacan saartay guulihii ka dhanka ahaa mareykanka ee uu amiirka al-shabaab axmed cumar abu cubeyda uu ku sheegtay muuqaal socday 52 daqiiqo oo uu dhowaan soo duubay. taliya ku-xigeenka howlgallada ee taliska mareykanka ee africa africom brig general michel casteles ayaa sheegay in guulihii uu abu cubeyda ka sheegtay weerarka ay dagaalyahanada kooxda ku qaadeen saldhigga belidogle aysan waxba ka jirin, balse taa bedelkeeda jawaab weyn laga gaarsiiyey al-shabaab. Catalanes oo warbixin ku qoray shabakada Military Times ayaa sheegay in weerarkii dhacay 30kii September ee lagu wada dilay dhammaan 15kii dagaalyahan ee shabaabku ahaa ee soo qaaday kadib markii ay ka hortageen ciidamada mareykanka ilaalada ka ah saldhigga. waxay lumiyeen noloshooda, hubkooda iyo qalabkooda, ayuu yiri Castellanos. 3 baabuur oo walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa qayb ka ahaa weerarka fashilmay. 2 ayaga isqarxiyay inta aysan saldhigga soo gaarin, halna waxaa haleelay gantaal lala beegsaday, ayuu yiri. waxa uu sheegay in waxa kaliya ee mareykanku gaaray ay ahayd hal askari oo meyr doorsoomay kadib markii uu ka naxay jugta qaraxa. tani waa sababta aysan argagixisadu u baahin wax muuqaalo ama sawiro ay ku cadeyn karaan propagandadooda inay khasaare gaarsiiyaan mareykanka, sababtoo ah ma jiro wax khasaare, ayuu yiri Brig General Miguel Castellanos. ururada argixisada waxay inta badan beenta iyo akhbaaraadka aan saxda ahayn u baahiyaan si ay u xoojiyaan qorshahooda wax burburinta ku dhisan uguna dhiirigeliyaan dagaalyahanada ay qoranayaan. si gaar ah tani waxay inta badan dhacdaa marka khasaaraha uu iyagu ku badan yahay uuna gobolkooda sii dhacaya. tani waa xaaladda iminka ee al-shabaab. Brig General Miguel Castellanos ayaa sheegay in al-shabaab ay sii wadi doonto inay been baahiso, balse xaqiiqda dhulka ka jirta ayaa taasi ka duwan. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkaynu halkan soo gelino. waana mahadsantiin. waa hagaag daawadayaal qodobkeena ku xiga waxaanu ka soo qaadanaynaa meeya odayadii ma jeerteen maxayse uga aamuseen dhacdadii kacday xarunta baarlamaanka ee maamul goboleedka Puntland ee magaalada Garowe. dhacdadan ayaa kadib waxay dhacday israsaaseyn ka dhex martay ciidamada taawacsan gudoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka Puntland Doobow iyo kuwo kasoo horjeeday oo uu horkacayay madaxweyne Deni oo dableedaasi rasaaseyntii iswadaarsatay dhimasho iyo dhaawac sababtay. haddaba meeya odayadii ma jeerteen hadday ugu ahaato nin kaloo Faroole iyo Cabdiweli Maxamed Gaas. cadowga Puntland oo ka faa'iideysanaya burburka iyo kala qaybsanaanta beelaha iyo deegaanka iyo habka baarlamaanka iyo maamul goboleedku wax uu wado. haddaba daawasho wacan wanaagsan khudbado ku saabsan iyo wixii faahfaahina ee siyaasiyiintaasi iyo fikirkooda. waa hagaag daawadayaal qodobkeena ku xiga waxaanu ka soo qaadanaynaa meeya odayadii ma jeerteen maxayse uga aamuseen
dhacdadii kacday xarunta baarlamaanka ee maamul goboleedka puntland ee magaalada garowe. dhacdadan ayaa kadib waxay dhacday israsaaseyn ka dhex martay ciidamada taabacsan gudoomiyihii baarlamaanka maamul goboleedka puntland Doobow iyo kuwo kasoo horjeeday oo uu horkacayay madaxweyne Deni, oo dableedaasi rasaaseyntii iswadaarsatay dhimasho iyo dhaawacba sababtay. haddaba meeye odayadii ma jeerteen hadday ugu ahaato nin kaloo Faroole iyo Cabdiweli Maxamed Gaas. cadowga Puntland oo ka faa'iideysanaya burburka iyo kala qaybsanaanta beelaha iyo deegaanka iyo habka baarlamaanka iyo maamul goboleedku wax uu wado. haddaba daawasho wacan wanaagsan khudbado ku saabsan iyo wixii faahfaahina ee siyaasiyiintaasi iyo fikirkooda aan wadayno ilaa laga gaaro ama jiilka kala qaadan lahaa aan gaarsiino. waa midda koowaad weeye. waayo ka talishiina shacabkan muqadas weeye, kama leexanayno sidii lagu heli lahaa. qodobka koowaad weeye. qodobka labaad, ururkanu wuxuu ka dhashay diidmo faragelin aan ahayn dadkiisa iyo xubnihiisa. waxaan idiin ballan qaadayaa talada jooxo mar walba inay shacabkeeda iyo xubnaheeda yeelanayaan, oon cid kale aanay mididin u noqonaynin. waxaa kaloo idiin ballan qaadayaa ummaddanu dagaal adag bay soo martay, siyaasad bisil oo degan xaqeedana gaarsiin karta, dalkan iyo shacabkanna amnigooda iyo noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayn karta inaan ku wadno oo aqli iyo maangal ku dhisan, annagoo xaqeenna marna ka tanaasulayn. sidoo kale waxaan ayadana idiin sheegayaa jooxo ma aha oo keliya nuurka soomaalida ogaadenya, waa nuurka geeska africa. walaalaheen soomaaliyeed gacan baan ka geysan doonaa sidii aan muxuu ahaa ayagana duruufaha haystaa noo tixgelinayna gacana ugu geysan lahayn, wadajirkooda iyo amnigooda iyo say horumar ku samayn lahayn, u heshiin lahayn, gacan baan ka geysanaynaa. ugu dambeyn waxaan idiin sheegayaa si maangal ah ayaa dadjooga shucuubta geeska africa, ama ha noqdaan kuwa etoobiya haddaan wada joogno, ama ha noqdaan kuwa geesaha daafaha Kenya, Eritrea, Suudaan, soomaalida walaalaheen labada gees naga xigta, siyaasad maangal ah oo danteenna iyo danta shucuubtaas sidii laysu qabatiin lahaana waan ka shaqaynaa 100%. ugu dambeyn waxaa aas-aasu ah jooxo hantida keliyaan leenahay waa laba hanti umaan leenahay, waa xubnaheenna iyo shacabkeenna. shacabkeennana waan midaynaynaa, xubnaha iyagana waxaan ka shaqayn doonaa siday u midoobi lahaayeen, isku jiha iyo gacanta isu qabsan lahaayeen, oo ay u noqon lahayn ul iyo diirkeed biidnillaahi kariim. dhammaantiin waan idin salaamayaa. ugu dambeyn waxaan mahadinayaa dowlad deegaanka soomaaliyeed oo noo fursad noo siisay in hoolalkanaan muxuu ahaa aan ku shirno, in amnigeenna ilaaliyaan iyo waxyaabo badan oo kale ay qabteen. ayagana waan ku mahadinaynaa intii ka qayb gashay. inta kalena waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale gacan waxay geysan karaan ummadda isu keeninteeda ka shaqeeyaan. haddaan soo koobo magaalada Goday iyo shacabka Goday iyo dadka degan iyo salaadiin ogaaskeeda iyo salaadiinteeda iyo oqaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo ganacsadeeda iyo bajaajkeeda kulli dhammaan aad baan u mahadinaynaa. biidnillaahi kariim. ma iloobin ciidanka wadaniga xoreynta ogaadenya, naafadiisa, agoontiisa, inta u laxaad beeshay, hooyooyinka u gablamay, ma iloobayna ayagana. waxaa weye wax kastoo la qaban karo waan qabanaynaa. kama dambays gabdhaha soomaalida ogaadenya waan xoraynaynaa hadduu ila yidhaahdo. waan xoraynaynaa, kor baan u qaadaynaa sharaftooda, himiladooda. number 1 taana waa ballan weeye. gabdhaha horaan ugu ballan qaaday siyaasad gabdhaha soomaalida ogaadenya meesha kuwaad fadhiisanaya inaan u ballan qaadaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa ku mahadsan yahay. waxaan xasuusinayaa laascaan oo ka hadlaya meelo kala badan oo hadda la qabsadeen inay jiraan xudun u dambeysay. saan sheegay khudbadii waxaan oran lahaa runtii dad badan baa ka hadlay oo yiri waxaan rabaa marka fikirkayga inaan ku cabiro 3 waxyaabood. midda koowaad inaan ka hadlo dhibta ka jirta Puntland, sababto haddaan laga hadlin, haddaanba dhibi jirin maxaad isu sharxaysaa, maxaad qabanaysaa wey. waxaan arkay dad badan oo waxba ka hadlaynin
haddana odhanaya waxaanu nahay candidates baana sababtoo ah dhib baa jirta dhibta in laga hadlo oo la iftiimiyo waa lagama maarmaan tan labaad waxaan rabaa inaan ka hadlo sida ay aniga ila tahay fikirkayga dhibtaa jirta Puntland sida looga bixi karo aragtidayda ku aadan iyada iyo ugu dambeyn aniga Cabdiwali ah waxa aan qabtay iyo waxa aan rabo Puntland inaan ka qabto haddii aan meesha tago ilaahay u idmo horaan in badan uga hadlay waan se ku celcelinayaa dhibaha ka jira Puntland dad waxay yiraahdaan maxaad u sheegaysaa Puntland dhibteeda cadow baan leenahay ku farxaye haddaan dhibta laga hadal xalkeeda la heli maayo waa in dhibta la ogaada waxay tahay ka bacdina aanu ka wada hadalnaa sidii aanu xal u raadin lahayn tan hooseysa waxaa weeye Puntland waxaa ku dhacay kala furfurasho siyaasadeed marka siyaasadda ka hadalno waxaa ku dhacay political fragmentation ayaa ku dhacay Puntland dadkii ku bahoobay 1998 maanta ma wada joogaan jir ahaanna uma joogaan physically uma wada joogaan qalbi ahaanna uma wada joogaan morally na uma wada joogaan waa dhabtu taawey dhulkii Puntland ee 1998 ugu bahoobay in badan oo ka mid ah gacan kale ayay gashay waan ku celinayaa orana waa iga maqasheen beela tahay qabiil inta qabiil ku soo duulay dhulka qabsaday ma jiro dowladda yiraahdo Soomaaliland ayaa inta soo duushay ka qabsatay Puntland oo waqti dhamaantii dadkii ugu waaweynaa dowladda Puntland markaas laascaanay joogay madaxweyne ku-xigeenka maanta jira Cabdisamed Cali Shire taliyaha ciidanku waa laascaanay joogay wasiirka maaliyadda gaagaab waa uu joogay sidaan maqashiisnaa marka haddii dowlad ka qabsatay waajib ku xidhan ila tahay in aan looga fadhin qabiil inuu qabiil ka ceshado wax loo baahan yahay dowladdii laga qabsado waajib bay ku hay inay soo celiso ma aysan dhicin xataa in dowladdu ay isku daydo inay soo celiso iska daaye xataa marna maysan ekaanin inay u xaydxaydanayso xataa inay soo celiso xataa ma dhicin karo xadka Puntland waan naqaanaa meeshuu ahaa 1998 waxaan maleynayaa inuu oog ku dhowaa ama oogahaa maantana tukaroq waa lasku hor fadhiyaa dhulka intiisa badnaydna in badan ka midana waa la qabsaday isu sheegi mayna taa marka su-aasha markaas wadiina waxaa weeye dhulka maqaani qabiil gaar ka maqan yahay mise dadkii ehelka ahaa ee maamulka wada samaystay ayuu ka maqan yahay waa su-aal laga jawaab u baahan wey waxaa loo baahan yahay marka dadku way isweydiinayaan government is a social contract dowladnimadu waa heshiis bulsho heshiiska haddii lagu xadgudbo la wada dhigtay in dib loogu laabto wax la iska weydiiya waa waajib wey dadkii heshiiska wada galay hadday qaarkood dareemayaan heshiiska in laga baxay oo lagu dulmiyey ma inay ka dhiibiyaan oo ay ka hadlaan oo ay shucuurtooda iyo dareenkooda muujiyaanna waa wax waajib oo laga maarmaan wey waxaan ognahay dhammaanteed dadkaas Puntland ka mid ahaa dhulka la qabsaday in loo hiiliyo iska daaye inaan in badan aan maqalay in loogu darcay iyo aflagaado waxaase nasiib darro ah dadka kale haddaana marka yani mas-uuliyadda dadkii lahaay haddii mas-uuliyaddooda ay ka soo bixi waayeen sidii waajibku ahaana ay arki waayeen in inteenna kalena aan u aamusnay oo aan waxba ka oran ha ugu horeeyaan ismada Puntland ha ugu horeeyaan laftooda waan u sheegaya ma aysan oranin oo dadkaan dhawaalaheena ee dhibaatooday ee dhibtu qabsatay ya ha laga daayo ha laga daayo sida tan ma qabatee ismaana oran
ismana aan weydiin. marka maxaa diidayaa in badanoo ka mid ihi inay tiraahdo waanu tegaynaa? wax diidayaa ma jira. in badan oo kale oo puntland ah iyana waxay tamanayaan cadaalad darro iyo dowladda puntland oo xaqa ilaahayn ka waayeen. waan ognahay dhammaantood waa sognahay. waxay hadda meesha laga shaqeynay dhan baa ka mid ahaa raas caseerland iyo maakhir iyo waxaas waa buux jiro wey in laga hadlana u baahan. لكن waxaan naga dhaxayaa ka isku galaha ka isku waxaan leeyahay in dadku oo oga dhaxano sida dadka baa loo kala qaaday oo dadku qaatayaan meel dib hada aan la soo socdaan lana waa meel isla ama isla doonay ama kayshiin ama Soomaali ku waa fiir ama la kale
الدنيا
لقيت دباع